الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا الميل وجوكنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعي ده هراء سوق بين جري وكدوينه مركور وحان جعلان جنا سوق بين حديث أما آية أما كلمة ما كيف بحق صواب على جبر صوماليات أو كنا اليوروب كنا آية صواب عليه وحياة شيء كسم قصة آدي ويا بدن قصة ده سو حياة سمتها مسكح هذا ديلي سو كجران kadibna faa'iido rabna inaan ka soo baxsano qisada khulaasadeeda. Gabadha marka waa weydiiyay qisadan dadka ma u sheegi karaa si ay aga faa'iideystaan ama laga cibro qaato. Waxay tiri wax dhib ma laha, waa sheegi kartaa maadaama aad magacayga sheegaynin. Marka qisadan waa qiso aad la yaab badan oo dadkiina ku war markaa dhageysanaysa waxaa laga yaabaa inaad tirahaan oo kale waxaa macquul ma ahan inaad tirahaan laakiin aan la socono ilaa intay ka dhamaato. Qisada bilowgeeda waa gabar Soomaaliyeed oo Soomaaliya ku dhalatay. waxay ka dhalatay faamil oo ka kooban 9 qof ayada waxay ahayd qofka shanaad ay ahayd afarna way ka yareed laakiin sidii ay sheegtay waxay ahayd qof aad iyo aad active u ah oo karti leh oo dadaal badan. gabadhii marka aabaheed waa uu dhintay marka hooyadeeda soo korisay 9 koodaba hooyadooda soo haysay. gabadhu waxay tahay marka 14 sano markaan gaaray waxaa lagu daray nin ayaa lagu daray maadaama duruuftay adkeed nin ayaa lagu daray. ninka markii lagu daray kadib ninkana uu isla joogna marka waxay tiri hooyo waxaa marka ay garabtay mar walba waxyaalo oo macquul ahayn oo dhib keenayso مثلا wax keen almo waxay tiri ninkii marka waxaan beena u sheegay waana khiyaanay ninkii hore waa khiyaanay oo waxyaalo badan oo diinta ogolaan ayaan sameeyay. waxaan igu qasbay waxay tiri waxa waaye hooyadii pressureka uu haysay ama culeyska uu haysay markasta dhaqaalaha weydiinaysay. ninkii waxay tiri markaan saas u galay almuhim waxyaalo badan aan ka dhacay qaladad badan aan sameeyay waxay tiri waa ka baxay wadankii way ka tagtay oo waxay aaday Sacuudiga aaday iyadoo shaqaysanaysa. marka waxay tiri hooyo marka talabaadkeeda maadaama Sacuudiga aan galay waa sii batay oo guri in loo dhisay ilmo in la dhoofiyo waxyaalahaas rabtay. marka waxay tiri Sacuudi markaan galay waa shaqadii aan shaqaynayay kadib waxaan go'aan ku gaaray inaan guursado nin Sacuudi ah oo Sacuudiga dadka madmadow inaan guursado ayaan go'aan ku gaaray. ninka waxay tiri nin xoolo lahu ahaa ninka waa isguursanay. ninkiina waxaan u bilaabay filimkii ninka hore aan u bilaabay oo ahayd inaan xoolihiisa asigana wax isda marmariyo oo been aan u sheego khiyaano adiga aan ku sameeyo maalin walba filim cusub inaan u keeno. uma guursanay nin ahaan uma guursanay shay kaliya u guursaday waxay ahayd inaan dhaqaale ka helo bas laakiin nin ahaan marnaydeeda ugu jiray tiri inaan xaas u noqdo laakiin waxaan ka rabay kaliya aan ka rabay inaan xoolaha ka dhaco ama xoolaha aan ka qaato ayaan rabay. waxay tiri marka xoolahan soo qaado waxaan soo diri jiray hooyo aan soo diri jiray qadar Allah ninka waxay tiri wuu xanuunsaday isbitaal la geliyay. ilaahay wuxuu waafajiyay tiri marka inaan ninka dhaho cafi ninkii cafido ninkii marka waxay bilaado u tagtay waxay tiri hebelow waxaan ka rabaa inay cafisid ayaan kaaga baahanahay. marka ninkii wuxuu yiri arinta dhan uu sheegay tiri waxyaalaha dhan aan sameeyay arintaas sameeyay kullu waxay tiri been ay waxba kama jirin reasonka uu sameeyay waxay ahayd inaan xoolaha ka qaato ay ahayd waxaan ka rabaa inaan cafiyo xoolaha laakiin ma rabino familkaygu duruufaysan joogo ayaan u sameeyay. marka wuxuu yiri tiri qof wanaagsan tahay maadaama aad u samaysay arintaas familka ajligeeda u samaysay qalbigaaga ayuu ilaahay kugu badbaadina anigana waa ku cafiyay ilaahay dartiisan ku cafi wax kasta ay u samaysay. ninkii uu dhintay gabadha Sacuudiga joogtay way soo baxday waxay soo gashay Yurub ay soo gashay markii soo gashay sidii bilowday marka shaqo way shaqaysay gaarwaytii markii Yurub soo gashay marka waxay tiri waa wadada xooga waa ka baxay waxaan bilaabay qaad waxaan bilaabay sigaar waxaan bilaabay waxyaalaha loo baahneen ayaan bilaabay tiri. kadib waxaan baranay tiri nin cadaan aan baranay maya sidoo loo joogo waxay tiri habeenada kamid ah ayaan dhafray. markaan dhafray kadib online kan galay waxaan arkay tiri waxyaalo oo aad iga yaabay ayaan arkay. marka online markaan galay waxaan arkay tiri agooman meel joogo iyo dad xanuunsan iyo arrimo arkay tiri. markaan arkay subax markaan waa bariistay marka waxay tiri waxaan go'aan ku gaaray arrintan go'aan gaaranay inaan nafido oo sameeyo
ayaan ugu talagalay. qisada way dheer tahay 5 daqiiqo aan ugu talagalay maalmo inaan ka dhigno. gabadha marka go'aankeeda muxuu ahaa maxay sameey doontaa insha Allah ta'ala xalaqada dambe ka dhigan doonaa waa inuu xalaqada dambe. barakallahu fiikum. Salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.